madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu caawa xarunta madaxtooyada ay gaalkacyo kulan kula qaatay hoggaanka dhaqanka ee gobolka Mudug qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo haldoorka iyo guddiga horumarinta ee gobolka madaxweyne Deni ayaa dhageystay warbixin ay ka soo gudbiyeen xaaladda guud ee gobolka waxa ay ka sheekeeyeen horumarka socda caqabadaha iyo fursadaha iyo baahiyaha ee gobolka ka jira madaxweyne Deni ayaa aad uga mahad celiyay sida quruxda badan ee qaabka qoraalka ay warbixinta xaaladda guud ee gobolka ay uga bixiyeen waxaana uu sheegay inay wax badan ay dawladdu ka qabanayso baahiyaha ee ka jira ee gobolka iyadoo loo kala horumarinayo sida ay u kala mudan yihiin madaxweyne Deni ayaa uga mahad celiyay guddida horumarka iyo kaalinta ay ka qaadanayaan iyo wada shaqaynta dawladda waxaana uu ku baaqay in guud ahaanba laga wada shaqeeyo adkeynta amniga shirkan ayaa wuxuu qayb ka yahay kulamo uu madaxweyne Deni la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Mudug inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo aad iyo aad buu mahadsantihiin